بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أمور الدنيا والدين qodobka waxaanu kaga hadlaynaa wax la yiraahdo redistribution wax kale ma aha haddii laba routing protocol oo kala duwani ay kuugu configure gareysan yihiin systemkaaga sidee dhexdooda reconfiguration la iskugu sameyn karaa ama redistribution la iskugu sameyn karaa iyaga dhexdooda la iskugu furi karaa. For example EIGRP iyo OSPF ayaad rabtaa inaad isku furtid oo iyagu ay redistribution isticmaalaan. Scenario-dan goormay dhacdaa markaa? Tusaale system hore ku jiray. Systemka hore wuxuu isticmaalayay static routing for example ama laba dynamic routing tusaale ugu fiican soo qaadan. RIP uu isticmaalayay iyo EIGRP bay kala isticmaalayaan. Macquul ma aha in systemkii oo dhan inta la wada upgrade gareeyo dhammaantood hal protocol laga dhaxaysiiyo. Si aan taas u dhicin systemkaaga cusub ee aad soo kordhinaysid waxaad sameynaysaa wax la yiraahdo redistribution waxa weeyaan routing protocolska for example tusaale aad u fiican balkan inoo yaala xagan waa autonomous number gaara kanina waa autonomous region gaara. For example halkan waxa yaala EIGRP ba ku configure garaysan this network kale aad u ballaaran baad halkan ku haysataa isagana OSPF ku configure garaysan. waxaad rabtaa labada network inaad isku furtid labadoodaba ma wada bedelaysid oo hal network kama soo wada dhigaysid ama hal routing protocol ma geynaysid ee waxaad u baahan tahay inaad soo qaadatid router labadoodaba aad configuration ku sameyn kartid oo labadoodaba aad isku awood ku yeelan kara inaad labadooda isku dhex furtid technique-aas in baranayna marka. Redistribution maxaa tahay ama niraahdo routing protocol ka loo yaqaan redistribution protocol sax maaha laakiin aan iraahdo redistribution process aan bixiyo. waa process waxaan leeyahay routing learning from one source to another. hal source baa laga baranayaa mid kalena la baraya. Redistribution at least one network at least one working physical link to the each routing domain. tusaale ahaan waxa lagaga baahan yahay redistribution soo dhaco hal network oo physical linki inuu sameyn karo routing domain inuu sameyn karo each routing domain mid kasta inuu sameyn karo. tusaale ahaan uu bixin karo EIGRP-gina OSPF-gina inuu bixin karo. Okay, redistribution is useful in case with the network expanding. wuxuu yahay haddii tusaale ahaan network-gaaga aad u baahan tahay inaad expansion ku sameysid ama margin isku sameysid oo isku dhex furtid. In a real life anigu waxaan isticmaalay system-yo sidaas oo kale aan isku dhex furay waxaanan keensaday system hore oo jiray ayaa waxaan isticmaalaynay inaanu system cusub keensano. Systemkii hore ee jiray ee routing protocolska gaarka isticmaalayay iyo kaayagu way kala duwanaadeen ka bacdina waxaan sameeyay redistribution process-kan isticmaal. waa very useful runtii. Okay, lab-kan tagaynaa markaa dhanka iyo lab-keena gee topology-gan aan haysanay okay kan iyo lab topology-gan aan haysanay haddaan fiirino waxaan dooran muxuu yahay okay halkan iga soo kacay ahayd yes kana u yeedh waxay dooran grabpalan ay dooran kana ma dhowaan hel isticmaali doonaa saddexdii router halkan aan ka soo kiciyey router 2 laba jeer buu soo kacay iga cancel router 1 kan ku horeeyo aan eega tusaale ahaan show AB router aan idhaahdo waxay ku configure garaysan OSPF ayay ku configure garaysan router oo markii dambeysay isticmaaleen show AB root OSPF isagana OSPF ay ku configure garaysan. hadda waxaan isticmaalayaa sawirkan aan ka soo qaaday aan tuso waxaan rabaa inaan halkan dhigo qaybtan cusub halkan iyara weyne kan qaybta waxaan u bixinayaa hal topology oo waxaan u bixinayaa la yiraahdo okay la yiraahdo dhinaca waxa la yiraahdo aan dheeranayaa tusaale ahaan dhinaca waxa la yiraahdaa baan waxay ku configure garaysan OSPF 1
by the way ayaan isticmaalaynay dhankan waxaan rabaa inaan routing protocol cusub isticmaalo EHRB inaan ku configure karayo already igu jira riba igu jira sorry waxa igu jira OSPF laakiin OSPF kan ka bedelaya waxaan geynayaa waxaan ka dhigayaa EHRB. Why I'm doing that? Because waxaan rabnaa in redistribution isticmaalo dhankana waxaan leeyahay waxa la yiraahdaa EIGRB autonomous number 100 ayuu noo okay ayaynu ka dhigaynaa 100 baan ka dhigaynaa hadda markaasi labadeena router ayaynu u baahnaanaynaa kow routerka dhexe weeyaan halka u dhimatay halka configuration ka dhacay waa routerka dhexe waxaan leenahay network dhexe iyo LAN-kan ha ka mid ahaadaan OSPF EIGRB na dhinacan WAN-kan ha ka mid noqdo marka router 3-gaygan aan gelayaa waxaan leenahay waxaan saaraynaa routing protocol qayb ka mid ah router OSPF 1 remove sorry waxaan leeyahay delete saan u isticmaalo waan idhaahdaa no network 192.1 networka dhexe umaan ka saarayaa no 20.1.1.1.0 aan idhaahdo 21 iyo 0 kaas umaan ka saarayaa oo wide card bitkiisu ahaa 255 area 0 waxaan ka saaray halkaa network baan ka tuuray network dhexda waan ka tuuray waxaan ka tuuray networkaasaan ka saaray haddaba kaa waxaan ku bedelayaa exit waxaan leeyahay router EHRB 100 baan odhanayaa 100 baan bixinayaa networkgaygu waa kan 20.1.1.1.0 aan idhahdo halka u dambeysa network address uu noqdo network address haddii kale wuxuu noqonayaa kaasaan ka dhigayaa no auto summary waad odhan kartaa laakiin hadda ina waxba ugama baahnin maya warbad baynu gallay bad baan gallay router 3 baan configuration ku sameeyay router 2 aan u baahnay okay waana sax ka waynu u baahannahay isaga markaa router 2 baan laakiin u dan lahaa inaan ka saaran doonayay ka router 3 gaan ka saaray waana sax dhinac markaan ka eego ka labaadna waxaan ka dhigayaa network-gayga labaadna waxaan ka dhigayaa network LAN-kaygu xidhiidhsan hoosta 192.168.3.0 nabaday okay router 2-gaygana tagayaa markaa router 2-ga ayaan tagayaa oo ka dhexda ah network-gaas kaliya aan kusoo reebayaa waan ka saarayaa EHRB-ga inaan kala daayo OSPF-kana OSPF-ka qaybtaa u daynayaa labada network-gana waxaan ka dhigayaa EHRB config terminal interface router EHRB 100 baan odhanayaa network 20 laba routing protocol ma wada qaadan karaa jawaabtu waa haa laakiin adiga waxaa lagaa rabaa inaad kaad isticmaalaysid new adjacency baa samaysmay exit waxaan leeyahay markaasi waxaan ka saarayaa EIGRB-gii unbaan u daynayaa network-kan OSPF-kan ka saarayaa sidii markii hore aan sameeyey okay waxaan leeyahay router OSPF 1 no network 20.1.1.0 wildcard bitkiisuna ahaa 00 xagga lagu soo durki 255 area 0 ayaan ka saaray okay haddaan imika router 1-ka eego oo network-gaas u yaqaanay ma garanayo network-gu ka baxaya 2-go kaliya taa kusoo harhaya oo ka noqonaya ayuu yaqaanaa imika router-kaas haddaba router 2-ga weeyaan halkay wax ka dhacayaan informationka halka redistribution ka dhacaya waa router 2-ga router 2-ga weeyaan configuration-ku bartu inooga dhacaya imikaanu imanayna marka waxaan leenahay hadda waxaan ku jirnaa OSPF-ka ku jirnaa OSPF-ka inagoo ku dhex jirna ayaan hal command raacinayna simple state hal command waxaa command-kaasi la yidhaahdaa redistribute EHRB 100 subnet simple state intaasaa la raaciya hal mar baan dib u noqonayaa isla routerkii waxaan leeyahay router EHRB 100 iminka OSPF-kii baan ku yidhi waxaad subnetka EHRB-gaad haysid soo ogolow soo redistribute gare haddana EHRB-gaan ku odhanaya adiguna waxaad adna haysid soo daa ee OSPF-ka waxaan idhi router EHRB 100 dabeetana waxaan leeyahay redistribute
OSPF 1 waxaa haddaba halkan trig baa ku jira, trigis yar baa ku jira. waxaan odhanaynaa deetana matrixgaasi imisuu noqonayaa. matrix bandwidthkayga waxaan ka dhigayaa for example 1 mega aan ka dhigo or 1k aan ka dhigo, kun aan ka dhigo, kun numberka bandwidthka kun aan qaato, 1 kilo aan ka dhigo, 1 kilobit per second. okay, kilo waa kun macnaha. okay, maxaa i raaca? waxaa i raaca delay matrixkaagu imisuu noqonayaa. waa bandwidthkii, delaygii, loadkii, technique aan sheegi jirin. delaygaygu wuxuu noqonayaa 20,000 for example, 20,000. yes, 20,000 waa intaas. deetana waaye maxaa i raacay? reliabilitygaygu imisuu noqonaya 255 iska odhanaya. waa rateka adnu kaaga dhexay maximumka qaadanaya 255. deetana another sorry intan waa inaan idhaahdaa sorry matrixgii waan idhi, bandwidthkii baa imika yimid. bandwidthkayga waxaan ka dhigay isagana just assume 100 for example. waa iska wax number badan lagaagama baahna. iyo MTU-guna imisuu noqonaya? waa K5kii. MTU isagana waxaan odhanaya, waxaan ka dhigayaa rangeka inta udhaxaysa 2500 aan idhaahdo for example. intaasaan ku deynayaa dhan. haddaan imika router ku laabto wankaygii oon ab arrow isticmaalo on inter idhaahdo, waxa soo galay wax la yidhaahdo aan markii hore igu jiri jirin oo ah 0E2. E2 micnaheedu waxa weeye waa redistribution. waa redistribution. marka kaasi wuxuu igu yimid baa laleeyahay redistribution, waxaanu ka yimid kaa. okay, kana wuxuu ka yimid 192.168.3.0 isna waa redistribution, wuxuuna iga soo galay baa laleeyahay 10.1.1.2 buu iga soo galay. okay, hadda ma bin garayn karaa 192.168.3 sorry .3.100. waa sure inaan bin garayn karo. router 3gayga baan tegayaa, isagana waxbaa soo baxay show AB root aan idhaahda. isagana isna waxaa soo baxay EX. hayaay DEX muxuu yahay? xaggii hore OSPF-ka E2 buu ahaa, laakiin kan waa EX waayo waxa weeyaan D waa dynamic hosting configuration protocol-ka loo yaqaan EHRP. EX-na waxa weeye external. waxaan waa wax redistribution lagu sameeyey oo banaanka iga soo galay. anna waan bin garayn karaa, laankiisa waan bin garayn karaa, 192.168.1.100 waan bin garayn karaa. wabillahi tawfiiq.